habeenada ka mid ah nin boqor ayaa ku soo laabtay qasrigiisa xilli dambe oo uu jawigu aad u qaboobaa. kadibna waxaa albaabka qasrigiisa ku hor arkay mid ka mid ah ilaaladiisii kaasoo da' ahaa, xidhnaana dhar aad u khafiif oo aan dhaxanta ka celinayn. wuu u soo dhowaaday boqorkii markaasuu ku yidhi, miyaana dareemaynin dhaxanta adeer? odaygii ayaa mar keliya dareemay inuu faraj u baxay, ducadii gabadhiisana la aqbalay. markaasuu ku yidhi boqorkii, waan dareemayaa wallaahi, weliba dhaxan xoog ah ayaan dareemayaa, laakiinse ma haysta dhar diiran oo dhaxanta iga celiya, sidaas darteed waan isaga adkaystaa dhaxanta. boqorkii ayaa ku yidhi, ha u bixin waxaas, waxaan gacanyarayga kuugu soo dhiibayaa waxaad ku farxi doonto. aad ayuu ugu farxay odaygii wanaagga iyo deeqsinimada boqorka, kaasoo galay qasrigiisii kuna mashquulay carruurtiisii. ilaaweyna ballantii uu qaaday. aroortii markuu waagu baryey waxaa la helay odaygii waardiyaha ahaa oo dhintay, horyaalana albaabka qasriga, agtiisana ay taallo warqad ay ku qoran tahay, mudane madaxweyne, waanu adkaysan jiray dhaxanta habeen walba anoo is adkaynaya, laakiinse ballantii aad iigu ballanqaaday dugsoonka iyo hadiyaddu waxa iga qaaday awooddaydii iyo adkaysigaygii, waana ii dishay, waxaana ii ilowsiisay ducadeedii joogtada ahayd ee aan mar walba odhan jiray, ilaahay anigu kuma kalsoona cid aan adiga ahayn. haddaba komitiga noogu reeb nuxurka sheekada iyo waxa ay ku socoto.